أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته والصلاة والسلام على حبيبه وخليله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد waxaan kusoo jirnay walaalayaal suuratu naazicaat waxaan ka qaadaynaa insha allahu tacaala aayadda 7 ayaan ka qaadaynaa caawa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu dib ugu laabtay walaalayaal ka hadalkii uu ka hadlayay ay suuradduna ku bilaabmatay bacsiga isa soo saaritaanka arrintii buu ilaahay dib ugu laabtay subxaana wa tacaala marka ilaahay sala la hadlaya qoladii kaafiriinta ee gaalada oo tilmaamaya maangaabnimadooda ayaa ilaahay wuxuu leeyahay yacni ma fikirayaan caqliyan ilaahay wuxuu yihi a antum warma idinka ashaddu khalqan abuuritaankiina adag oo in dib nafta laydii kusoo celiyo ruuxdii dib jirkiina loo soo nooleeyo ma taasaa ilaahay ku adagoo ku culus oo adag labada ami samaa-u mise samadaad aragteen ee joogga iyo jamaalka iyo dherarka leh ee ilaahay qorxiyey ayaa ka awood badan abuurkeeda ka awood badan oo ka culus inkastoo ilaahay subxaana wa tacaala aanay macalsamada abuurkeedu aanay ilaahay wax culaysa ku haynin subxaana wa tacaala haddana ilaahay wuxuu leeyahay macnaha caqli ahaan bal dib u fikiro ma abuurkiina ilaahayda abuuray subxaana wa tacaala ee ruuxda dib laydi ku soo celinayo isagoo weliba ilaahaydi abuuray idinkoon jirin dee idinkoon hore u jirin aan idi abuurayba hal ataa cala alinsaani xiinu min addahri lam yakun shay-an madkuuran adigoon ahayn shay-an madkuuran waxa la sheega baan ahayn buu ilaahay ku sameeyey marka ilaahay subxaana wa tacaala way uga fududayba in ilaahay subxaana wa tacaala qof hore u jiray inuu ilaahay nafta dib ugu soo celiyo marka ilahay wuxuu leeyahay a antum ashaddu khalqan ma abuuritaankiina dib laydii soo abuuri doono ayaa adag oo culus ami samaa-u mise samadaad aragteen ee dheer ee jooggaa leh ee aanay haynin tiirar aanay hayn oo dhidibba aanay haynin banaaha oo ilaahay dhisay subxaana wa tacaala samadaa ilaahay dhisay taagi ayaa adag rafaca samkaha ilaahay subxaana wa tacaala saqafkeeda kor buu u qaaday samada samkaha saqafkeeda ilaahay kor buu u qaaday markaa samadu dee lama soo koobi karo samada markastoo socoto oo samada lasii koraba waxaa la gelaya caalam kale iyo magac kale yeelanaysa ama space ha noqoto fadaa ha noqoto xataa maaragtay qabri sanaaciyadu markay tagaan oo lasii dhaafo oo la socdo makhluuqu ma gaari karo rafaca samkaha ilaahay baa subxaana wa tacaala saqafkeeda kor u qaaday fasawaaha ilaahay subxaana wa tacaala wuu simay samada wuu qurxiyey fasawaaha axsana khalqaha wuu qurxiyey oo wuxuu u sameeyey wareeg xarako ay isku wareegto wareegay wareegto xarako sida dhulkuba wareego xarakada ay wareegaysana iyo wareeggaas samada ay wareegaysana walaalayaal waxaa ka dhalanaya habeenkiiyo maalinta sidoo kale dhulka wareegaysa iyo qoraxda intaba waxaa ka dhasha habeenkiiyo maalinta marka ilahay wuxuu leeyahay waa aqdasha laylaha samadaa aad aragtaan habeenkeeda ilaahay baa madoobay subxaana wa tacaala oo habeenka u sameeyo xarakada wareegaysu ilaahay u sameeyey waxaa ka dhalanaysa buu ilaahay subxaana wa tacaala inay mugdi noqoto samadu habeenkii wa akhraja duxaaha
maalintiina uu ilaahay subxaana watacaala iftiimiyo oo qoraxda usoo saaro oo qoraxdu iftiimisa barqadii iftiimisa subaxii markuu waagu dilaaco ilaah wuxuu ihi dhulkana walarda dhulkana bacda daalika markaa dhulka waxaa la abuuray bacda khalqi samaawaat markuu ilaahay samooyinka abuuray ka bacdi walarda dhulkiina ilaahay subxaana watacaala bacda daalika samadaa markuu qurxiyo kadib ayuu isagana abuuray daxaaha markaasuu ilaahay dhulkii simay uu balaadhiyey basataha liyaciisha calayha alkhalq si khalqigu ugu dul noolaado ayaa ilaahay dhulkii balaadhiyey markaasaa dhulku wuxuu yihi dhul degan oo aan dhaqdhaqaaqayn oon ruxmaynin si noloshu u hirgasho daxaaha markaa taasi ka hor iman mayso inuu dhulku wareegayo ama uu sida kubadda u samaysan yahay macnuhu waxa weeye daxaaha si loogu dul noolaado ayaa ilaahay dhulkii nadiif ka dhigay oo uu carro u sameeyey oo aanu ahayn dhulku mid ruxmanayo gargariiraya akhraja minha kabacdina ilaahay dhulkii wuxuu kasoo saaray maa-aha biyihi ililado ayuu ilaahay ka dilaaciyay bado ayuu ilaahay ka jeexay webiyaan ayuu ilaahay subxaana watacaala kasoo saaray markaa dhulkiina ilaahay biyihiibuu kasoo saaray subxaana watacaala awoodiisa wa marcaaha kabacdi ilaahay dhulkii haddana wuxuu kasoo saaray daaqii iyo doogii iyo midhihii iyo dhirtii iyo nabaadkii ayuu ilaahay kasoo saaray subxaana watacaala waljibaala haddana ilaahay buurihii buu abuuray arsaaha buurihiina dhidibadu u taagay oo wuu adkeeyay ilaahay subxaana watacaala marka waxaa la yidhaahdaa buuraha inta aasan iyo inta muuqata way isleeyihin ujeedada ilaahay buuraha u sameeyeyna waa dhulku si aanu u ruxmin oonu dhaqdhaqaaqin ilaahay wuxuu ihi waxaasoo nimcooyina waxaan u samaynay oonu dhulkaydii ku gogolnay oonu samada u taagnay oonu u dhisnay oo biyahaan idii ku soo saarnay ayuu leeya ilaahay subxaana watacaala mataacan lakum waa si bani aadamku ugu raaxaysto oo ugu dul noolaado oo noloshu u hirgasho waliancaamikum iyo nimcooleydiina sidoo kale xoolihiinuna ugu dul noolaadaan oo maaragtay doogaa u daaqaan oy biyaha u cabaan oo idinkuna aad macnaha midhaha cuntaan ood wax ku beerataan ood ku noolaataan ood biyaha cabtaan waa nimco ilaahaydi siiye subxaana watacaala adduunka marka adduunka laakiin waxaa la rabaa qofku inuu ilaahu mahadnaqo oo ilaahay rumeeyo subxaana watacaala intaana iman maalinta yowmal qiyaamaha ee dhibaatada badan ee ilaahay uu ka dambeysayey ilaa adduunka u dhammaanaya adduunka marka la rogo haddana dib ilaahay u baabi'iyo fa idaa jaa-at itaamatu lkubraa waxaa imanaysa buu ilaahay yihi markay timaado tii weyneed ee wareerka badneed addaahima alcudmaa waa qiyaamaha waa qiyaamihii ilaahay balan qaaday iyo saacaddii dhici doonto ilahay wuxuu ihi fa idaa jaa-at itaamatu lkubraa markay timaado qiyaamuhu oo ah taamatu lkubraa tii dadka ka dawaqinaysay ee qofku wareerayo ee qofku murugoonayo ee qofku maaragtay u dhididayo yowma yatadakaru linsaan waa maalinta insaanku xasuusan doono maa saca wixii uu soo shaqaystay bani aadamka qof kastaa maalintaas wixii uu soo shaqaystay uu xasuusanaya shar iyo khayr min khayrin oo shar waayo waxaa la horkeenayaa faylashiisii iyo maaragtay dawaawiintiisii baa la horkeenaya markaasaa wax walba ku qorayiin markaasuu akrinaya markuu akhriyana wax walba yatadakar wax kastuu soo shaqaysta maa saca dib buu xasuusanaya waburizat aljaxiimu naartii jaxiimana waa la keenayaa buu ilahay yihi subxaana watacaala waa lasoo muujinaya bannaankay usoo baxaysa jaxiimi liman yaraa qof kastaana wuu arkayaa buu ilahay yihi subxaana watacaala cid ay ka qarsoonaanayso jaxiimi ma jirto qof kasta way u muuqanaysaa jaxiimi argagaxeeda iyo warwarkeedana way wadataa siduu ilaahay tilmaami doono subxaana watacaala jaxiimana waxaa loogu talagalay dee waa qofkii diida dee ilaahay subxaana watacaala amarkiisa diida adduunka siduu ilaahay ka hadli doono aayadaha dambe insha allah aynu ka hadli doono